السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ولا ليال وأنا مركز لدي كسر نقضي سيدي عادة إنه هينا موقع عصب إذن لو داقية ولا ليال والأكتهين عدوغيني ودن كان أصدوبك كويسي إنه صوحي حيتي ومعاويسي يسراويسي صلابتي ودحضة صوحي دي ومركي اللي حاد اسكو ديارنا يو إنه هدنا الصون نقضو سي أنو وجرنو nololtan ka sii liidata haddana walaalayaal sidani xal maahin in dadkii wadankan afduubka ku haysta ee dhibaayay ee ka dheefayay dhibaatada ay nageliyeen inay haddana kor joogaan ee iyagu ka fikiraan sidii ay isbedel u keeni lahayn dhexdooda annaguna aan ka fikirin oo sugno iyagu wax noo qorsheeyaan cadow markaad ka sugto inuu wax ku qorsheeyo adaaba ka khaldan oo ka daran وعدوغين ولا ليال وحو هبيني درار كو تشدي انو ويل iyo gabar kasto oo muwaadin oo Djibouti dalkan u dhalatay ama deegaanaha ka soo jeeda in ay balwad ku jirto in ay daleysato in jirkeeda ka ganacsato wiilku ka ganacsado gabadhuna ka ganacsato waayo baahiba u geynaysa wax la'aan ba u geynaysa ay wax barashadii ay barteen waxba kuma helayaan qabiyalad awgeed iyo maxaa ku raada federud ama map uu dhigay ninkan wadanka ku haysta xaaraanta ee afduubka ku haysta iyo ilmaadeeridii ee ugu talagalay iyagu inay noolaadaan ummadda kalena inay baabiyaan gaar ahaan dadka deegaan ahaan ka soo jeeda wadankan dadka u dhashay dalkan haddii iyagu ay ka dhixi waayaan oo iyagu ka sugtiin wax waa baabi'ina wey ninku dilaayo kuma nooleyn karo nin baaba aaga ka shaqeynaya tafaraaruqaaga midnimadaada kama shaqeynayo isku keenkaada waa been wey been buu kuu sheegaya markuu dankaa leeyahay ayuu ku afmacaaninaya marka walaalayaal waa inaan barano cadowgeena iyo sidiiqiina wadankan ilaa intii calanka la qaatay ilaa imika soo galiiti baa haysta kani isku sheegay mucaarid 1929 ka bilow ilaa imika waa soo galiiti kani xaq u dirir isku sheegaya waa soo galiiti haawe dadkii dalkan u dhashay dadkii dalkan deegaanaha ka soo jeeda haw maxay uga hadli laayihiin dalkooga maxay uga sheekeyn laayihiin maxay ugu hadli laayihiin dadkooga maxaa aamusiyey maxay ka baqayaan ma kuwan bay ku hadleeyeen sida hadday tahay oo taalimooda xal konton sano kale suga haddana inaad ku jirtaan nololtan ka sii liidata waayo waa idinkaa dalbaday dee waad arkaysiin waa lidii caddeeyey dagaal xawliyaa laydinku hayaa geesi walba waa laydinka dhashay daraar cad baa hortiina lagu dilaya oo far dhaqaajinayn ku kalena si dahsoon si qarsoon ayaa loo dilaya isagoo la sumeeyey oo wax la siiyey ayuu 3 bilood 4 bilood 6 bilood ka bacdi geeriyoonaya waa maxay ciidan aad sugaysaan aad ku haleynaysiin waayo war hurdada laga kaco in wadankiina leedin nacsiyaa la rabaa ajnabi kasta wadankan la keeno sharci darro ku jooga dalka waxa lagu talagalay wadankan waxa loo soo galiyo loo diiwaan galin laayahayna dadkan sharci darrada ku jooga wax kala ma ahayn inay idinkan biliqaystaan ni cabsi galiyaan guriyada u dhacaan hablihiina kubsadaan ubadkiina falakada ka saaraan inta uu bay u joogaan waa cabsi galinta loo isticmaalo oo taliskan uu isticmaalo si uu shacabka uga cabsiyo si uu helin dadkan wadankan u dhashay iyo dadka deegaanka soo jeedaba fursad iyo waqti ay midoobaan wada sheekaystaan danooga ka hadlaan marka ma waxa lagu jiri raggan FC Gadidipo ciyaal Garissa ciyaal maxaa ku bari ciyaal kuwan kale uma laga sugi jawaab war dadkan way noo cadeysteen wadanka inay ka deefaan ee dafar taabtaan ee nagu dul xaraqoodaan annaguna aan gaajoono iyagu tala galeen ka daran iyaga waxa way kani annaka naga dhashay noo adeegsanayaan ee u shanala dhacaya ee u xarigaya isaga laftigiisa waxba looma ogolo afarta u boobana barito lama ku geeriyooda laga wada qaadi doona mar ragga walaalkood Saad Umar Geelo geeriyooday wixii uu wadanka ka xaday hanti uu lahaa oo dhan islaantiisii miyarada ahayd u deen waayay oo ka daba tago ilaa ay nafta ka qaadeenba xoolihiisa cunaba ka sugaysi naxariis in idinka wax nisiyaan war ilaahina u soo noqda war dadkan dalkan wuxuu badeen badbaado haddii kale waxa la mid tihiin nin kasto dulmiga isku daawada nin kasto ma taqaanaa ninkaasi ogolaaday inuu mar lixaad soo noqdo farna dhaqaajin waaya sheekh iyo shariifa inuu yahay daba dhirif inuu yahay daalim gargaare oo dulmiga ninka galayna la weydiin doono allahumma hal ballaqtu
ما اتري ما ماشتا وبالله توفيق.